السلام الله عليكم في wanaagsan khiyaarta nala socota meel kasta oo dunida ka joogtaan waa 25ka bisha July sanadka 2026 timinta caawa iyo barnaamijka lafagurka wararka caalamka iyo diblomaasiyadda ee channelka Barrow qodobada aan idin kugu hayo waxa kamid ah wala isgalay waana la isgaraacay caawa waxay u muuqanayaan kooxda xuutiga ahayd ee wadanka Yemen iyo Sacuudiga in ay awoodii ugu dambeeyay isku adeegsanayaan saddex gobol oo Yemen kamid ah si adag ayaa loo garaacay caawa halka dhinaca kale xuutiyiintu ay sameeyeen weerarkaasi mid ka xoog badan oo gudaha wadanka Sacuudiga lagu qaaday xagee wax marayaan maxay salka ku hayaan duqeymaha ugu dambeeya ee dhacaya tabinteena caawa ayaynu ku eegi doonaa taariikhda dagaalkaasi Israel waxay isku diyaarinaysaa dagaal weyn oo lala gala dawladda Iran Mareykanka ayay taasi ku raaxaysaa Trumpna weerar in la qaado dib ayuu u dhigayaa maxaa keenay sababta Trump uu tilaabadaasi u qaaday waxaynu eegi doonaa gantaalaha dawladda Iran ay ku garaacayso weerarada ay ku qaadayso saldhigyada ku yaala wadanka Mareykanka gantaalka Khaybar Shakan ayaa lagu soo waramayaa inuu yahay kan ugu adag hadda dawladda Iran ay bilowday in ay ku garaacdo qaybo kamida saldhigyadaasi haddaba gantaalkan maxaan ka naqaanaa ilaa iyo hadda dhumucdiisa iyo waliba awoodaha uu geysan karo warbaahinta Mareykanku waxay qirayaan Trump inuu ka niyad jabay guul degdega uu ka keenay dagaalka Iran marka waxa uu leeyahay hal mar ayaan ismiidaaminayaa waxaan bilaabi doonaa dagaal aad u adag oo aan ku garaaco weerarada si xoogaysanaya مسؤول سراء إيراني أنه وحاول شيء وهذا يدو واسيس عنيان يان لقى يابين بويري دولة إيراني نيسليبتو مريكان كأو فاروتيه سالدك الدفارة الدفرة اللي يرهده كوي الله وطن كإسوتاقة إمارات كعربتا يسال لقى ذكره العديد إسنا كوي الله وطن كقدر محا كان يا مريكان كإن أو ألابيه سهل كاسي كررتو مواررka ayaa xoogeysanaya masawax yeela ayaa halkaasi looga baqayaa caawa arimahaasi ayaan dul mari doonaa taxliilinta weeraradii ugu dambeeyay dagaalka diyaarada la soo waramayo in la soo riday Ciraaq gobolka Arbil oo xiisadu ay ka taagan tahay Mareykanka oo leeyahay qunsuliyadiisi waxba helay arimahaasi ayaan rabaa inaan isugu kaaxiro sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa qaar kamid ah saaxiibadii muuqaalkii ugu horeeyay ka soo baxaya aragtidooda iyo su'aashii aynu ku baahinay muuqaalkii ugu horeeyay aragtidooda ayaan shaashada soo saari doonaa oo aan idin la wadaagi doonaa balse dadkayna daawanaya ay qayb uga noqdaan barnaamijka isla markaana ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyada waaweyn ee gobolka bariga dhexe ka taagan haddaba si aad qayb uga noqoto saaxiibada aan aragtidooda qaadan doono muuqaalkan xigana aan ku baahin doonaa aragtidooda fadlan waxaan su'aashan caawa qaybta barnaamijkan aan ka dhigayaa haddii gobolka bariga dhexe furimo kale oo cusub oo dagaal ay ka bilaabmeen Yemen iyo dawladda Sacuudiga ahayd waliba xuutigu ay isgaraacayaan dhinaca Iran dagaal cusub oo kii hore ka duwan loo biratomanayo gobolka bariga dhexe yaa gacanta ku hayn doona dagaalkana mustaqbalkiisa muxuu noqon doonaa fadlan magacaada ku bilow kadibna aragtidaada sida aad u aragto kusoo qor si aan muuqaalkaada u qaadano far la fahmi karo la akhrin karana aad bay muhiim noogu tahay soo dhawaada khiyaar saddex gobol oo Yemen ka tirsan waa la garaacay ciidamada Sacuudigu waxa ay bilaabeen inay aad u cartamaan isla markaana waxa ay bilaabeen inay garaacaan qaybo kamid ah dhulka xuutiyiinta ay gacanta ku hayaan waa jawaab ay ka bixinayaan weerarkii lagu qaaday Jiisaan iyo waliba deegaankii kale ee Sacuudiga ahaa ee maanta kooxda xuutiga ee Cabdimalik al-Xuuti oo hogaamiyana waxa uu leeyahay Sacuudiga oo kaliya ma noqonayaan cidda goolaha gaartay Yaxya Sareec oo afayeenka militariga kooxda ah ayaa arintan ka hadlay waa xiisad iyo xaalad kale oo cusub oo gobolka bariga dhexe ka taagan marka la fiiriyo sida dagaalkan uu noqonayo iyadoo qaar kamid ah dawladuhuna ay ka sii baqayaan dambaaburadan holcaysa dhimbilaha ka faniina in gobollo kale oo hor leh oo ku yaala gobolka bariga dhexe ay gaaraan sida caawa uu qorayo telefishinka Al Jazeera xiisada u dhaxaysa dawladda Yemen iyo isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga iyo kooxda xuutiga ayaa waxa lagu soo waramayaa in ay si xoogan isku garaacayaan
kadib markii duqeymo culus laga fuliyay 3 gobol oo Yemen ah halka Xuutiyiinta ay ku dhawaaqeen inay weerar gantaalo ah iyo diyaarado iswada ay ku garaaceen shirkadda shidaalka ee Sacuudiga ee Aramco la yiraahdo afayeenka militariga kooxda Xuutiga ee Yahya Saree ayaa sheegay in kooxdaasi ay 10 gantaalo ah rideen oo ridada dheer nooca cruise-ka ah iyo diyaarado iswada ay ku bartilmaameedsadeen Sacuudiga waxa uu ku tilmaamay meelaha la garaacay inay yihiin goobo xasaasi ah oo ah xarumaha Aramco ee magaalooyinka Jazan iyo sidoo kale Yanbu ee wadanka Saudi Arabia waxa uu sheegay in Xuutiyiintu ay sii wadi doonaan weeraradooda haddii cadaadiska iyo waxay ugu yeereen go'doominta lagu sii hayo deegaanada ay maamulaan kooxdaasi Saree waxa uu ku celiyay halku dhigay kooxda ay ahaa go'doominta waxa looga jawaabi doonaa go'doomin kale weerarna waxa uu noqon doonaa in gacanka hadal kale looga jawaabo waxa uu leeyahay dad dagaal ugu samaysan fagaaro laguma baxo si aad ula dirto hadda waa daandaansiga Sacuudiga mira dhalkiisa inuu helayo sidaas ayuu caawa ka sheegay telefishinkooda Al Musira isagoo tafaasiil ka bixinaya weeraradii ugu dambeeyay ay qaadeen Sacuudiga waxa uu soo jeediyay degniin degdeg ah difaaca madaniga ah ee Sacuudiga ayaa xaqiijiyay degniin hore ee qatarta hal dhinac oo gobolka Jizaan ah iyo 3 jeer oo dhawaqa gantaalaha gadiga laga shiday magaalada Yanbu si shacabka looga diga halista gantaalada muddo yar kadib markii la sheegay in qatartu ay dhamaatay iyadoo la shaacin qasaaro faahfaahin dheeraad ah taasoo u muuqata dawladda Sacuudiga in ay la kulmeen duqeymo isla markaana nidaamyada difaacu ay ka hortageen weeraradaasi duqeymo ayaa ka dhacay gobolada Ma'rib Al-Jawf iyo Hudayda oo dhamaantood ay gacanta ku hayaan kooxda Xuutiga oo ka tirsan wadankaasi Yemen dhinaca kale telefishinka kooxda Yemeniyiinta ee Xuutiga ayaa sheegay in duqeymo dhinaca cirka ah lala bartilmaameedsaday saldhigyo militari oo ay lahaayeen Xuutiyiinta oo ku yaalay Ma'rib iyo Al-Jawf iyo sidoo kale Hudayda sida wararku ay tilmaamayaan waxa la sheegay in la garaacay goobaha laga rida gantaalaha fariisimo lagu kaydiyo hubka saldhigyo laga hago gantaalaha dawladda Xuutigu ay tuuraan xarumo laga dooliyo diyaaradaha iswada sida wararkaasi ay tilmaamayaan saraakiil militari oo Yemeni ah ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dileen tiro ka tirsan dagaalyahanada Xuutiga ay ku jiraan khubaro ku takhasusay ridida gantaalaha waa sida ay sheegeen lama shaacin cidda fulisa weerarada inkastoo militarigu ay sheegeen inay qayb ka ahaayeen howlgallo ay fuliyeen ciidamada cirka ee dawladda Yemen kulan lagu adkeynayo diyaargarowga ciidamada ay kooxda Xuutiga si degdeg ah hadda uga jiraan magaalada Ma'rib waxa ka dhacay kulan uu hogaaminayo xubin ka tirsan golaha hoggaanka madaxweynaha Yemen ninka la yiraahdo Sultan Al-Arada kaas oo ay ka qayb galaan baaliyay wasiirka difaaca iyo taliyaha ciidamada kooxda Xuutiga kulanka ayaa diiradda lagu saaray xaaladda dagaalka heerka diyaargarowga ciidamada iyo waliba xoojinta difaaca jamhuuriyadda waa sida Xuutiga ay warka u dhigaan isbahaysiga weerarka uu ku qaaday Al-Hudayda oo ah magaalada Kadle laguna tiriyo kaabayaasha dhaqaalaha ee Xuutiga ayaa loo arkaa inay tahay mid looga jawaabayo weerarkii Jizaan iyo Yanbu lagu qaaday waa dhanka Sacuudiga isbahaysiga taageera dawladda Yemen ee uu hogaaminayo Sacuudiga ayaa sheegay in uu fuliyo howlgal militari oo ka dhana bartilmaameedyo ay leeyihiin Xuutiga oo ku taala magaalada Hudayda isagoo sheegay in weerarka uu jawaab u ahaa duqeymaha lagu sameeyay maraakiibta isticmaalaya badda cas ee Sacuudiga qasaaraha weyn uu ka soo gaaray afayeenka isbahaysiga ee Carabta ee Sacuudiga uu hogaamiyo ninka la yiraahdo Turki Al-Maliki ayaa sheegay in weerarada aysan beegsan baalirin dekada Hudayda waa sida ay leeyihiin dhammaan dekadaha Yemen ay wali u furan yihiin maraakiibta ganacsiga Sacuudiga waxay sii wadi doonaan booyada difaaca maraakiibtooda iyo danaha qaranka ee wadankaasi dhinaca kale warbaahinta Xuutiyiinta ayaa dhankooda sheegay in 4 duqeyn lagu qaaday magaalada Hudayda iyo jasiiradda Kamran iyadoo la sheegay in mid ka mid ah xarumaha dekadaha la weeraray xarun isgaarsiinna la garaacay shaqaale halkaasi ka howlgalaya uu ku dhaawacmay sidoo kalena dhaawac rayid oo qof haweeneeya uu jiro dawladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay Sanca ee Rashad Al-Alami oo hogaaminayo ayaa iyana war ka soo saartay waxana ay ku eedayeen waxa dalkaasi ka dhacaya in ay jawaab u yihiin
waxa xuutiyiintu ay sameynayaan iyagoo gacan siinaya bay yiraahdeen dowladda Iran ayaa waxa ay doonayaan in ay dhibaatooyin xoog leh u soo jeedaan wadanka Yemen sida uu hadalkiisa u dhigay sargaalkaasi sare ama hogaamiyaha dowladda caalamku waa aqoonsan yahay hogaamiyaha golaha madaxtooyada loo yaqaano oo dalka Yemen oo ka hadlaya duqeymihii ugu dambeeyay dowladda jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran gantaalaheeda hadda looma dulqaadan karo waxna warbaahinta qaar gaar ahaan kuwa Mareykanku ay bilaabeen in ay dabagal ku sameeyaan sababaha keenay duqeymihii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolkaasi gantaalaha loo adeegsaday iyo nooca ay yihiin wargeyska Mareykan ee caanka ah ee The Wall Street Journal ayaa haddaba daboolka ka qaaday mid ka mid ah noocyada gantaalaha dowladda Iran ay isticmaaleen wargeyska The Wall Street Journal ayaa soo xigtay saraakiil Mareykan oo sheegay in Iran ay adeegsanayso gantaalka ridada dhexe ee Khaybar Shakin la yiraahdo weerarada ay ku beegsadeen saldhigyada ciidamada Mareykanka ee bariga dhexe tan iyo markii dagaalka uu bilowday maalmihii ugu dambeysay saraakiisha ayaa sheegaya in Khaybar Shakin uu yahay gantaal si adag u shaqeeya isla markaana awood leh uu ku gaaro bartilmaameedyo ku dhow 1450 kilomitir iyadoo madaxiisa qaraxyada uu awood u leeyahay in uu sameeyo kala firdhasho xoog leh marxaladda ugu dambeysay ee duulimaadkiisa si uu uga baxsado nidaamyada difaaca hawada tani waa mid keentay in nidaamyada thaadka iyo waliba kuwa Iron Dome-ka iyo waxyaabahan kale ay isticmaalayaan ciidamada Mareykanka iyo xulufadiisa gobolku in ay gantaalkaasi qabashadiisa ay dhibaatooyin weyn ka wajahayaan warbixintu waxay intaa ku dartay in Iran ay ku tiirsan tahay hal nooc oo weerar ah balse ay isku darto gantaalka Khaybar Shakin gantaalo kale oo balastiga iyo diyaarado aan duuliyo lahayn taasoo iyana ugu fadhisa qarash yar waxyeelada uu geysan karana ay aad u ballaaran tahay waxa kale oo la sheegay in ciidanka Iran ay adeegsadeen awood ay leeyihiin duulimaadyo kala duwan iyo waliba xawaarayaal kala duwan oo ay sameynayaan isbedelada diyaaradahooda The Wall Street Journal ayaa xaaladan waxay sheegtay in loogu talagalay in lagu saaro culeysyo difaacyada Mareykanka iyadoo hal mar lagu qaadayo weerar dhinacyo kala duwan ka imaanaya arrintaasi oo sare u qaaday fursadaha qaar ka mid ah gantaalaha ay ku gaari karaan bartilmaameedkooda sida ay ku dhawaaqayaan caawa gantaalahaasi wargeyskaasi warbixinta uu sheegay warbixinta waxay sidoo kale tilmaantay in kastoo Mareykanka iyo Israa'iil ay weerar ku qaadeen xarumaha gantaalaha laga rida bilay la soo dhaafay haddana Tehran ay wali haysata awood ay ku dhaqaajin karto isbedelada waaweyn ee laga soo sheegayo bartilmaameedka inay gaari karaan haddii aan eego warar kale oo caawa ka soo baxaya gobollo kala duwan oo ka mid ah bariga dhexe Mareykanka ayaa awrtiisa ka xirxirtay saldhigyo waaweyn oo Mareykanka uu ku leeyahay gobolka bariga dhexe gaar ahaan saldhigiisii Qatar ee Al-Udayda iyo saldhigga la yiraahdo Al-Dafra oo isna ku yaala wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta kadib markii la sheegay waa sida wararku ay qeexayaan in gantaalaha wadanka Iran loo dulqaadan waayay sidaas waxa baahinaya qaar ka mid ah xuuraanka sirdoonka ee nidaamkaasi Iran oo isticmaalaya caawa warbaahintooda wakaalada wararka Iran ee Faris la yiraahdo ayaa ku warantay in iyadoo soo xiganaysa sawirada yaxgacmeed oo Mareykanka si buuxda u daadgureeyay laba ka mid ah saldhigyadiisii ugu waaweynaa ee military ee qaliishka uu ku lahaa qalabkii yaalay kuwaas oo kala saldhigga Al-Dafra ee ciidamada cirku ay isticmaalaan ku yaala Isutaga Imaaraadka Carabta iyo waliba saldhigga la yiraahdo Al-Udayda oo isna ku yaalay wadanka Qatar waxay leeyihiin caawa saldhigyadaasi inta badan qalabkii militariga ay yaalay iyo badi askartii ka howlgalaysaba waa laga daadgureeyay sida ay sheegayaan sawirada Faris ay baahisay shirkadaha dayax-gacmeedka ee la yiraahdo Sentinel 2 24 Juulyo sanadkii 2026 ayaa muujinaya in saldhigga Al-Dafra laga saaray diyaarado iyo qalab military oo Mareykan warbixintu waxay sheegtay in 3 maalmood ka hor ay saldhiggu ku sugnaayeen 5 diyaaradood oo ciidamada Mareykanka ah balse aan lagu arkin sawiradii ugu dambeeyay taas oo muujinaysa Mareykanka halkaasi awrtiisa inuu ka rartay saldhigga Al-Dafra waxa uu ku yaalaa koonfurta magaalada Abu Dhabi
waxaana degan baa layidhi qaybta 308aad ee ciidamada garabka cirka ee Mareykanka sida lagu tilmaamay warka la sii daayay. haddii aan eega saldhigga Al-Cudeydana warbixinta waxay sidoo kale tilmaamaysaa in sawirada dayax-gacmeedku ay muujinayaan in Mareykanka uu si buuxda u daadgureeyay qalabkii halkaasi ka yaalay. saldhigga oo ku yaala gobol galbeedka Dooxa ayaa loo arkaa inuu yahay kan ugu weyn ee Mareykanka uu ku leeyahay gobolka Bariga Dhexe, waxaana ku yaala xarumaha hore ee taliska ciidamada Mareykanka ee CENTCOM sida qaybta garabka militariga ee howlgallada gaarka ah fulisa ee loo yaqaan 379. Iiraan labada saldhig waxay door muhiim ah ka ciyaareen baytri dagaalka, sidaas darteed waxaa la ogaaday isbedelada waaweyn ee ka soo socda halkaasi. Faris ayaa soo xigatay ila military oo Iiraani ah kuwaas oo sheegay in Al-Dafra iyo Al-Cudeyd ay door muhiim ah ka qaateen weerarada Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iiraan intii lagu guda jiray bilowgii 28 Febraayo ee sanadkan. dagaaladii dhacay ee lagu dilay mas'uuliyiinta ugu waaweyn ma jirto xaqiijin kale oo madax bannaan oo warbaahintu ay helayso. Al Jazeera waxay leedahay ilaa iyo hadda lama xaqiijin wararkan ay baahinayaan caawa warbaahinta kala duwan ee dowladda Iiraaniyiinta. mas'uul sare oo ka tirsan dowladda Iiraan waxa uu leeyahay weeraradeenu waa sii socon doonaan ilaa iyo Mareykanka uu marada cad ee nabadda uu babinayo, isla markaana uu leeyahay mood waan isdhiibay Iiraan ay raalli noqo. hadalkiisa ayaa sidaas loo dhigay. xogayaha golaha sare ee ammaanka qaranka Iiraan ayaa sheegay in weerarada militariga ee dalkaasi ay wadaan ay socon doonaan ilaa lagu qasbayo cadowgu inuu isdhiibo oo ay yiraahdaan Iiraanay sidaan la idiinma malaynayn, ciidamadiina waa birlab aan laga gudbi karin. mas'uulkan ayaa sheegay in ciidamada Iiraan ay sii wadi doonaan duqeymaha iyo waliba weerarada lagu beegsanayo bartilmaameedyada cadowga, isagoo carabka ku adkeeyay in ololaha militariga uusan joogsan doonin ilaa laga gaaro ujeedooyinka ugu dambeeya. weerarada joogtada ah ee sida tooska ah way sii socon doonaan ilaa aynu gaarno yoolka miro dhalka ugu dambeeya aan ka leenahay. hadalka mas'uulkan waxa uu sii kordhinayaa xiisadda ka taagan gobolka Bariga Dhexe, iyadoo Iiraan ay hadda muujinayso in tallaabo kasta ay qaaday ay noqonayso mid aan laga baaqsan karin. madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trumpna waxaa la leeyahay waxa uu ka muujinayaa dagaalka ka soconaya gobolka niyad jab aad u xoogan, isagoo ka fakaraya Iiraan inuu gaarsiiyo khasaarooyin xoog leh si loo ogaado awoodda Mareykanka inaan loo dulqaadan karin. waa sida qaar ka mid ah wargeysyadu caawa ay qorayaan. wakaaladda wararka ee The Bloomberg oo soo xiganaysa ila ku dhow aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu si weyn uga niyad jabay sida uu socdo dagaalka, isla markaana uu hadda doonayo in Iiraan uu gaarsiiyo khasaare military iyo kuwa dhaqaale oo aad u weyn. sida ay sheegayaan ilahaasi, Trump ayaa bedelay qaabkii uu horay ugu wajahnaa baa layidhi xaaladda dagaalka, isagoo u janjeera siyaasad ku dhisan baa layidhi argoosi, cadaadis xoogan oo waliba dhaqdhaqaaqa sii xoojinaya. caqabadaha dhaqaale ee dagaalkan ayaa sidoo kale Mareykanka aad u haya. dhinaca kale ila xog ogaala ayaa The Bloomberg u sheegay in maamulka Trump uu wajahayo caqabada dhinaca maalgelinta dagaalka ah. warbixintu waxay sheegaysaa in maamulka uu ku guuldaraystay inuu helo ansixinta dhaqaale cusub oo dheeraad ah oo dagaalkaasi lagu sii wadayo. tani waxay sababtay in maamulka uu raadiyo ilo kale oo dhaqaale si loo daboolo qarashaadka dagaalkan Iiraan. wargeyska The Bloomberg waxa uu sidoo kale sheegayaa in muranka ku saabsan maalgelinta dagaalka uu sii xumeeyo baa layidhi xiriirka u dhaxeeya aqalka cad iyo Kongareeska Mareykanka. sida warbixintu ay tilmaamayso, khilaafka qarashaadka dagaalka iyo sida loo maalgelinaya ayaa noqday kan ugu weyn hadda Trump madax xanuunka ku riday, isla markaana uu diidayo in ay mushkiladan aad u sii ballaarato inta xiisadda gobolka Bariga Dhexe ay cirka ku laalan tahay. Israa'iil waxa ay leedahay ciidamadii heegan ayaa la geliyay. waxaynu deenaynaa weerar ballaaran oo lagu qaado dowladda Iiraan. amar ayaa laga sugaya madaxweyne Donald Trump, laakiin nasiib darro bay yiraahdeen waa sida iyagu ay qabaan
dagaalka dib ayuu Trump u dhigayaa isagoo ka baqaya isbedelada colaadu inay noqoto mid xaaladeeda ay faraha ka baxayso. hay-adda warbaahinta Israa'iil ee kan la yiraahdo ayaa soo xigatay mas'uuliyiin Israa'iili ah waxaana ay sheegtay in Israa'iil ilaa habeenkii xalay ahaa ay ku jirto heegan buuxa iyadoo filaysa in Mareykanka uu bilaabo weerar xooggan oo baaxad leh oo ka dhana wadanka Iiraan. sida uu sheegay mas'uulkan qorshaha la filayo waxa uu ahaa weerar military oo si weyn u kordhin kara xiisadda bariga dhexe iyadoo Israa'iilna ay diyaar u ahayd in ay si toos ah ugu biirto howlgallada haddii ay jawaab ka bixiso baa layidhi gantaalaha lagu weerarayo nidaamka Israa'iil. warbixintu waxay tilmaameen in ciidamada iyo hay-adaha ammaanka Israa'iil ay qaadeen diyaargarow sare oo ay hadda u muuqdaan in ay dagaal diyaar u yihiin. Trump ayaa dib u dhigay waqtiga kama dambaysta ahaa ee dagaalka fulintiisa uu bixin lahaa. hay-adda warbaahinta nidaamku waa Israa'iil waxay sidoo kale sheegeen in qiimeyn ay sameeyeen saraakiisha ammaanka ay muujiyeen in madaxweyne Donald Trump uu go'aansaday in uu dib u dhigo waqtiga kama dambaysta ah ee uu qabtay dagaalka. sida warbixintu ay sheegtay dib u dhigistaasi ayaa loogu talagalay Tehran inay siiso fursad dheeraad ah. xiisadda ayaa weli sii xoogaysanaysa waxaana u muuqataa dagaalkan in aan hadda waxba laga qaban karin oo taladu ay faraha ka sii baxayso. haddii aan eego wararka kale ee caawa ay qorayaan warbaahinta gobolka waxaa la soo sheegayaa dagaal aad u xoogan in ay ka dhaceen ama duqeymo xoogan aan idhaahdee in ay ka dhaceen qaybo kala duwan oo ka mid ah wadanka Ciraaq gaar ahaan magaalada Erbil iyadoo la soo sheegayo halkaasi qunsuliyadda Mareykanka inay bartilmaameed ahayd maanta. waxay leeyihiin ilaa iyo 5 diyaaradaha iswada ah ayaa lagu soo riday meel u dhow qunsuliyadda Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Erbil ee gobolka Kurdiyiinta ee wadanka Ciraaq. wakaaladda wararka Reuters oo xaganaysa ilaa amni oo Ciraaqi ah waxay leeyihiin nidaamyada difaaca hawada ayaa soo riday gantaalahaasi. wargeyska ama telefishinka 12aad ee nidaamka Israa'iilna waxa uu leeyahay diyaaradihii ajnabiga ahaa ee Israa'iil u soo socday waxa ay muwaadiniintooda ku wargeliyeen in ay joojiyeen gantaalaha iyo duqeymihii ay sameynayeen. waayahay inta aan dib idin xasuusin su'aasha caawa bal qaar ka mid ah saaxiibada ku xiran channelkan Cabdulcasiis Barrow iyo barnaamijka faaqidaada wararka caalamka aynu eegno su'aashii hore ahayd Sacuudiga ma ku faa'iidi doonaa weerarka uu ku qaaday kooxda Xuutiga si ay aragtidooda u soo dhigeen. sida aad shaashada ka aragtaanba daawdaan waxa uu leeyahay assalaamu calaykum magacaygu waa Xaaji Xasan waxaan joogaa Djibouti. Sacuudiga isaga ayaa gacantiisa isku dilayo sababtoo ah isaga ayaa bilaabay markii ugu horeysay weerarada diyaarad ka timid Iiraan oo u socotay beelay inay qaado wafdi ka qayb galayay aaskii Qamani marka ha ka leefleefo waxa uu sameeyay. waan ku salaamay Barrow aad baad u mahadsan tahay. daawdaan kalena waxa uu leeyahay magacaygu waa Ugaas Cabdullaahi Addis Ababa ayaan joogaa oo Itoobiya ah. waxaan qabaa Sacuudiga in la rabay in lugaha loo galiyo dhiiqo si dagaalka loo soo galiyo Xuutiga. Sacuudi dan uguma jirto buu yiri waxaan filayaa qatar badan baa ku gadaaman Xuutiga iyo Sacuudiga in la isku mashquuliyo. waxaad moodaa warar waaweyn baa soo baxaya colaadda bariga dhexe qatar weyn baa ku gadaaman rabbiyowna nabadgale. aad baad u mahadsan tahay Ugaas. daawadahanna waxa uu leeyahay magacaygu waa Ibrahim Nuur Daahir jooga magaalada Boorame ee gobolka Awdal. halka haddaan isku dayo buu leeyahay Sacuudiga isma difaacayo Mareykanka ayuu raali gelinayay laakiin waa kaga xumaadeen. waa qaar ka mid ah daawadayaasha iyo doodooda. su'aasha kale haddii aan u gala caawa duqeymahan ka dhacaya gobolka bariga dhexe hadday noqon lahaayeen Trump oo hadda isku diyaarinaya dagaal cusub iyo Sacuudiga iyo Xuutiga oo hadda ishayay Israa'iil oo heegan ku jirta markaad eegto gobolkan yaa ku gacan sareynaya mustaqbalkiisana muxuu noqon doonaa. fadlan magacaada iyo meesha aad joogto ku bilow kadibna jawaabta su'aasha abaar. soo dhawaada ha hilmaamina YouTube-ka inaad subscribe saartaan share gareysaan muuqaalka. fadlan marka hore waa inaad like saarto muuqaalka si uu dad fara badan u gaaro. aad baad u mahadsantihiin.